السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر هذا سنة الله ورعد. مالين هرا وحن في السنة برنامج أو دوكيومنتري أو صوت دياريان جورناليستيال أو فرنسيسة. مركا برنامج كاس مرة مصابحي أو دوكيومنتري في عنوية. مركا دار طينا في الستاني كيس هوس بجرا. مركا فرنسيس بقصة دياريان لكن تذكر على وحوي وحي بالو ترجمة في جريس هان بالو ترجمة. مركا برنامج كدار طينا في الستان لينك كيس هوس بجرا. marka barnaamijkaas waxaa looga hadlayay burcadbadeedka oo Soomaaliya ka shaqeysta marka arintan waxa way nimankan journalistayaasha daba galeen burcadbadeedkii u tageen burcadbadeedkii way wareysteen waxa way waxaana dadku sameeyeen waa maxay baa lahayd marka wareysi baa la yeesheen marka nimankii baa waxay u warameen journalistayaashii oo Faransiiska ah marka sidii u sheekaysanayeen oo kuwana ayagu fadhiyo sheekaysanayeen marka nimankii oo burcadbadeedka baa waxay ku soo hadal qaadeen wuxuu soo hadal qaadeen nimankii journalistayaasha wuxuu u sheegeen in arintan ay burcadbadeednimada ay madax la galeen sunta ugu soo daadinay waddanka darteeda marka waa kana waxaas darteeda bay burcadbadeednimo bilaabeen bay dhaheen sababtoo suntan khasaar badan bay noo geysay dhaheen dad badan baa nooga jiraday kalluun badan oo ay ka shaqaysan jireen waxa way waa dhinteen marka saa darteeda waxaa u bilaabmay arintan bay dhaheen marka nimankii journalistayaasha ah arinta daba galeen marka way daba galeen waxaan shirkadii waxay soo ogaadeen shirkadii oo sunta soo daadinayeen marka shirkadihii nimanka u shaqeyn jiray midkood baa arintii qirtaba oo dhahay arintan waxa weeye wadanka Soomaaliya suntan ku soo daadin jirnay buu dhahay marka ninkan waxa la soo ogaaday oo dambiga inta ku qiranaya inuu cali mahdi ay saaxiibaha ayay kana soo dhalinyarada masawirada la qaaday mujidan marka waxa kaloo la soo ogaaday suntan oo wadanka Soomaaliya lagu soo daadinayo inuu cali mahdi laftigiisa waa heshiiskiisa soo saxiix yaa kan soo jeed warqad dekreeta buu soo jeedaan ila Soomaaliya calaamadeedu inta waa u jeedaan soo jeed saxiix oo cali mahdi inta u jeedaan soo jeedaan marka cali mahdi waxa weeye wuxuu heshiis la galay shirkadda Talyaani ah waxa soo ogaadeen nimankii journalistayaasha warqadiina waa tan heshiis ku galay marka waxa weeye marka waa kaasa ninka madaxweynaha sheeganay baarintan خسارة وين وضن السوق السير مركا أرنتان وهوي علم هذه مركو مدحونها وهوي نين أو تلياني يحكوا مجاعبي كونسول أو أجوبة روم مركا نين كي بود الصدق وهذا هاي الشركة وحنوصل هذه الشركة وراه كيميكا إنس كداديان أو سرقيس أو إنس كداديان نوصل هذا ولا سر هذه ولا سهلة مركا نين كي وهوي مراكب وصادري أو قشن كي كبوهان مركا قشن كي وهوي علم هذه وحاس وحكومة الشيء العاق يربو بدش العاقته أو هالكاس لوجو شيء مقاطع هاي 500,000 مرة الباو مركب كيانه $500,000 بالحين وحب هنا شركات اليانجا مركب علم هذه كلها بقولك بصدق شنو كلها العاقتس ولا كيني مركب العاقتس سووا هو قاعد يجري كاشحان يهو بهان هو قاعد يجري مركب نيجا سوحوي أصلا وحودنا وحوي وسيدا وجوك وحستا سيدا والعاق هلا marka dad waxaas oo madaxda u yahay marka la jeclay marka suntii oo cali mahdi oo shirkadaha Talyaaniga oo heshiiska la soo galay waxa way wadankii oo dhan baa loo sidaadiyay waa kana maabkan u fiirsada meelihii laga helo dhan suntaas waa kaas muujideen marka hay wadankii dhinac ka dhinac waxa way suntaas loo sidaadiyay marka suntii halkaas ugu daadinay qaar waa radio active way qaar waxa way waa kiimiko culus way oo bira ah marka waxa way qof haduu taabto waxa way halisti caafimaadkiisa halis aad ugu galaya marka ninkan oo cilmi hadi ah waxa weeye asaga waxa u dana lacagta yarta oo heliyo iyo hubka yarta oo heliyo marka asaga iska xitaa wax kale dadka oo qabiilka uu matalayo oo magacooda uu ku dagaalgalayo oo ku shaqeysanayo xitaa uma nahin halkaas soo jeedaan suntii waxa lagu xawaalay xamar dadka xamar baa lagu xawaalay soo jeedaan oo tasaydo xawaalay ya marka waa taas nimanka maanta Soomaaliya madax laga dhiganayo أو كل على شو كاستيال قبيل واللي جعليهين قبيلة ده في السان وهو إنما ما ذهب وجعل لكن نصدره هو إنما كان ما ذكر جد النسان سأوجع شيء إذا ما جعله سكيل عليه ملاني كعلم هذا وهو جنس يا لكن خسارة ووضن كي وجستمر كم ذهبينها واللي ما تواجهته يا سنتي واللي واجهته هالكاس بتالا أروح هو هالكاس بقول يا أو هو سنتي هو بيجارسه baadki bay gaaraysaa dhulku bay gaaraysaa marka xitaa jirooyin badan oo aan la aqoon bay dadka ku sideynaysaa oo dad badan baa ku dhacayaan jirooyin aan la aqoon oo hospitaalada maamulka la keenay waa kuwana soo jeedaan marka waxa weeye ninkan oo cali mahdi ah waa kaasa
waxa weeye khasaaro badan buu waddanka soo gaarsiiyey waa hore dhintay laakiin khasaaradii uu waddanka gaarsiiyey weli dadku waa maanta la nool yihiin marka arrintan waxa weeye khasaaro badan bay dadka soo gaarsiinaysaa dadkii waxa weeye qaar waa jiran yihiin oo sidii loo gala lama yaqaano dakhtariintu waxay ka samayn karaan lama yaqaano xitaa dad badan waxaa jira oo malaayiin oo aan iska warqabin oo genetic ahaan khalad u galay sunta la keenay darteed marka arrintan waa arrin aad iyo aad halis u ah marka arrintan oo sunta ay soo hadal qaadeen nimankii baraadbadeedka ahaa waxa weeye weligeed lama soo hadal qaado marka lama soo hadal qaado laakiin waa dhib ugu weyn dhibaatooyin ugu weyn oo maanta Soomaaliya hortaagan wey marka videogii oo arkanay waxa weeye waxa la wareystay xitaa niman oo hay'ado u furan yihiin marka hay'adihii nimanka furnaayeen waxay ku fiiriyeen arrintan inay xaliyaan marka way yimaadeen way fiiriyeen naftooda baa carray sababtoo ah waxa way dhaheen annaga qalab ma hayno xitaa meel xiran oo ku samayn karno waddanka goon jirsadeen marka waxay sameeyeen waxa weeye wixii way alxameen bacahaas ku xiran marka ka carray naftooda uga carreen marka barnaamijkan waxa weeye waa barnaamij aad iyo aad u muhiim weeye hadda fiirsan kartaan fiirsada laakiin waxa weeye arrintan oo suntaas oo halkaas uga soo hadal qaaday waxa weeye waa arrin aad iyo aad halis u ah waa arrin u baahan in la xaliyo laakiin dhibka maanta jirta waxa weeye dadka maanta madaxda laga dhiganayo waxa weeye dadka madaxda u yihiin yaa weliba qabiilooyinka ay magacooda ku shaqaystaan waxaas ma kala jecla waxa wadan u ah si jawaab ku helaan si lacagta xaaraanta loo rabo bis marka meeshaas waxa ku baabaya waa dadkii wey marka arrintan waxa weeye waa arrin u baahan isbedel siyaasadeed in la sameeyo waa arrin u baahan wey waa arrin u baahan nidaam dowladeed wey haddii kale Soomaaliya la iska dhigtiro sida dhibaatooyin kale oo maanta waddanka ku jirta la iskaga dhigtiro waxa weeye dhibaatadan waa sii badanaysaa dad badan baa kusii jiranaya biyihii la cabay bay gaaraysaa waxa weeye dhulkii bay ku fidaysaa dad badan oo caafimaad qabo oo iska warqabin baa xitaa genetic ahaan khalad u gaarayaan oo halis kusoo baxaya ayaga ama dadkay dhalaan marka waa arrintan waxa weeye waa arrin aad iyo aad u muhiim wey oo wax ka qabad u baahan wey